dowladda Ingiriiska ayaa waxay deeq lacageed siisay maxkamadda dambiyada caalamiga ee adduunka ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano ICC International Criminal Court lacagtaas oo gaaraysa 25.2 milyan oo lacagta Kenya ah. Haddaba lacagtani ayaa waxaa loogu talagalay in lagu badbaadiyo markhaatiyaashii ku markhaati furi lahaa dadka ka dambeeyay qalalaasihii doorashooyinka oo ka dhacay dalkani Kenya sanadkii 2007. Haddaba heshiiskani ayaa waxaa kala saxiixday safiirka dowladda ee Ingiriiska u fadhiya dalka Netherlands Ambassador Paul Akorwright iyo haweeneyda u qabilsan arrimaha diiwaangelinta ee maxkamadda caalamiga Mrs. Salvina Arbia. Bishii Maarso sanadkan ayaa garyaqaanka maxkamadda ICC Luis Marino Cambo ku dhawaaqay in maxkamadda la horkeeni doono dadka looga shakisan yahay qalalaasaha doorashadii kuwaasoo uu ku sheegay in ay ku jiraan 6 ruux oo ugu waaweyn dowladani Kenya kuwaasoo aan la shaacinin magacyadooda. William Ruto waa xildhibaan laga soo doortay waqooyiga Eldoret ee gobolka Rift Valley oo wada hadal horay ula soo yeeshay ICC ayaa haddana waxaa la aaminsan yahay inuu ku jiro dadkaasi asagoo sheegay in loo hayo dad ku markhaati furaya dadkaas oo uu ku tilmaamay in ay yihiin kuwa loo ballan qaaday lacag iyo nolol wanaagsan ee dibadda ah taasoo uu ku eedeeyay guddiga u qaabilsan xuquuqda aadanaha ee dalkani Kenya. Laakiin garyaqaan sare Mr. Luis Marino Cambo ayaa ku nuuxsaday in aan ahayn dadka la sheegayo markhaatiyaashiisa ilaa iyo iminka inta la ogsoon yahay tirada ku geeriyootay qalalaasihii doorashooyinkii sanadkii 2007 ka dhacay dalkani Kenya waxay gaarayaan 133 halka 650,000 oo ruux ay ka barakaceen guryahoodii. Hussein Maxamed, Home Cable TV, Nairobi.